السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا له وايد سلامي وحان ربا إنا وحير أو كوبن أن كيراهدو مساجد بدن أو أدونك أيا لحري أرنتا كسابسن كورونا فيروس درتي بالله حري جمعوينكي يا جماعة انتبا مركز جماعة يا جماعة عذر دار إلى حد ما انتي ليهين أو ملحري كرا وحان ربا دور أرنمود مركان شيغا أدو أوغان كرتا إن شاء الله تعالى جماعة محل لوجة تجي كرا جماعة واحد لوجة تجي كرا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم تلمامي هدي أجر مرض جره أما قفك يسوي جريه أما أكبر قيو إنه كجرده أو عذرك أو قاض وحال لوجة هذا كرا مدافعة الأخبثين روح إنه مسقول أباهي أيو جماعة وهذا كرا وهذا كرا إنه نفتيسي حوليسي ريركيس أو أبقيو وهذا كرا مطر iyo roob iyo dhoobo iyo baraf inuu jira baa looga hari karaa waxa looga hari karaa dabayl qabow inay socotaa looga hari karaa waxa looga hari karaa qofku inuu basal iyo toon soo cuno rasuulku yiri uusan noo imaanin haddaba haday sidaas tahay shariicada islaamku waxay ku dhisan tahay in la ilaaliyo nafta la ilaaliyo sixada iyo caafimaadka la ilaaliyo asbaabta la qaato cudurrada faafana qaabkay ku faafi lahaayeen laga hortago rasuulku ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa tulqu bi aydikum ila tahluka wuxuu leeyahay rabbi subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu diiday xoolihi jirana in xoolo kale oo caafimaad qaba ceelkii ay joogeen lagu soo arooriyo wuu diiday waa adduunyadii baa la diiday dadkii qaar jirnaa maxaa u maleynaa qaarka kale ay u iimaanayeen wuxuu rasuulku ka hadlay wafti u yimid reer bani thaqiif ahaa nin cudurka juudaamka qabay wuxuu ku yiri ninka halkaasaanu kula mubaayacoonay oo ballanti uga qaadnay ha iska laabto oo yuna noo imaanin buu yiri wuxuu rasuulku ka carar qofka juudaamka uu hayo sida libaax aad uga cararto uga carar qofka daacuun hadduu meel ka dhaco wuxuu yiri qofkii wadanka joogana yuusan ka tagin oo meel foyow yuusan aadin kuwa meesha foyow joogaana yeenan imaanin haddaba sidaas daraadeed culimada islaamka sheekh al-islaam ibn taymiyyah rahimahullah wuxuu leeyahay xitaa qofka karantiilka waxa la aragtay inta dadka la soo ururiyo dadka jiran meel isugu geeyo dadka kale laga dhax saaro inay tahay arin waajib oo laga maarmaan ah ابن القيم كتاب كيس زاد المعاد فصل دنبو وبابيي رسولك سيدو وددك أمراض قبا قدبايا وإلى لنجري هذا بناء على هذا إنه أوفرنا إن مجامع الفقه فقهاء الشريعة في أمريكا علماء الكلام وحي يونا فتوودين haddii sulutaadka iyo dawladaha jira iyo maamulada jiraana soo jeediyaan magaalo si gaar ah awood loo saaro arintaana laga dayriyo caafimaadkeedina la isku raaco dhibaato weyn inay ka imaanayso in meelihii cibaadada iyo jaamacaadkii iyo iskuulaadkii iyo xafladihii iyo umurahaas oo dhan la xiro maxaa jira cudurkan sida la tijaabiyay waa hal ruux oo soo gala masaajida oo cudurkaasi qabo waxay sababi karaa masaajidka dhan in la xiro ayuu keeni doonaa gaar ahaan duruufta dadka dibadaha ku nool wadamada reer galbeedka jooga masaajidooda duruuf badan baa haysata hal mar haddii masjidka laga xidhana waa la furi doono ilaahi baa og sidaas daraadeed waxaa la isla gartay in la xiri karo masaajida shuruud ay soo jeediyeenna ay leeyihiin stateku 250 qof ka badanna inayna meel isuguba imaan karin xitaa hadday isugu yimaadaan salaada waad ku aragteen baraha bulshada ku xidhiidho qaabka ay leeyihiin loo tukado 6 feet in la isu jirsado wax la sameyn karana ma islaamkeena waxa layna baray salaadii taraasuba la isu dhawaada marka tabaacadu kala fogaada ma oran karno oo 6 feet isu jirsada sidaas daraadeed cudur daar bay dadku haystaan ay uga tagi karaan jamaacadii iyo jumcadii intaba sidaas daraadeed masaajidana waa xidhan yihiin inta badan masaajida waaweyn gaar ahaan masaajidka Abu Bakr Islamic Center of Washington caawa salaadii maghrib ayaa ugu dambaysa salaad hadda lagu tukado ilaa amar dambe insha Allah ta'ala dadweynaha reesiyaal Washington sida uu ogaadaan marka annaguna waa idin la wadaagi doonaa wixii update iyo wixii kolba cusub waa idin sheegi doonaa ilaa amar dambe wadcigu iska bedelayo masaajidku waa xidhan yahay wax activity ama nishaad ka socda ma jiro ama dugsiye ha noqdo salaadihii ha noqdo dhammaan waxa la wixii ka socday programmadii oo dhan
way taagan yihiin ilaa amar dambe. waxaan rajaynayaa waxa loo sameeyeyna waa xifdi iyo u danayn dadkeenna insha allahu tacaala, iyo cudurkan sii faafaya inaynan qayb aynaan ka noqonin. miidiyaha iyo waxyaabaha waddanka focuskeenna saaranna waxaynu ka jawaabi karna maaha. aad baad u mahadsantihiin. wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.